haddii aad dareento in aad edeb daran tahay waxaad ogaataa in aad edeb leedahay sababtoo ah kuwa edebta daran ma dareemaan in ay edeb daran yihiin guushu kuu iman mayso oo ku soo heli mayso waa inaad baxdaa oo aad adigu heshaa markaan yaraa waxaan jeclaa in aan weynaado laakiin markaan weynaaday waxaan tamaninayaa in aan yaraado nasiib xumaa qof wax walba yaqaano laakiin aanan ilaahay aqoonin maxaa ka fiican qof wax kale aanan aqoonin laakiin ilaahay yaqaano ahow mid faraxsan daqiiqadani waa qayb ka mid a noloshaadee saddex dadka ha u sheegin hantidaada safarkaada qorshayaashaada iyo madhabkaada haddii aanad jeclayn sida ay wax yihiin beddel ilingeed ma tiide raggu waxay ku riyoodaan gabadh dhammaystiran sidoo kale habluhu waxay ku riyoodaan nin dhammaystiran ma oga inuu alle u abuuray midba midka kale inuu dhammaystiro marka ha ku daalin inaad hesho qof dhammaystiran ee alle ka bari inuu qof khayr qaba kuu sahlo saamax cadowgaaga laakiin ha ku kalsoonaan tuunkayga waxaan ku qaaday wax walba culays oo niyadaada ku soo dhacayo dhagax iyo biro culus laakiin weligay ma arag wax ka culus daynta adiga oo keliya ayaa beddeli kara noloshaada qofku beddeli karaa ma jiro muhiim maaha siday dadku ku arkaan balse waxaa muhiima sidaad naftada u aragto xanuunka ugu daran kama imaada cadowga ee wuxuu ka imaada dadka aad ku kalsoonayd howlaha aad inta ugu badan ka fogaataa waa kuwa ay ku jiraan fursadahaaga ugu weyne haddii aad dhammaystirnaan raadinayso weligaa raalli ma noqonaysid kuwa awoodda badan maaha kuwa guulaysta mar kasta kuwa awoodda badan waa kuwaan isdhibin markay guuldaraystaan haddii ay ku yidhaahdaan suurtagal maaha iyagaanay u suurtagal ahayn balse adiga maaha haddii aad rabto noqo qof xun laakiin ugu yaraan ha noqonin beenlow haddii aanu qorshuhu kuu shaqaynin beddel qorshaha balse weligaa ha beddelin hadafka saaxiibtinimadu waa nimcooyinka noloshan ugu waaweyn qofkii lagu arsuqaa saaxiib waafi ah waxaa lagu israaqay hanti badan markay ku leeyihiin ma awoodid waxay kuu muujinayaan xadka awooddooda balse maaha adiga xadkaagii haddii aad rabto inaad hesho waxaanad weligaa hore u helin waa inaad samaysaa waxaanad weligaa hore u samayn dagaal aanan xabad joojin lahayn middaas waa nolosha bini'aadamka adduunkan guulaystuhu waa qof riyooday oo aan weligii quusan dadku waxay u nool yihiin si ay wax u cunaan anigana waxaan wax u cunaa si aan u noolaado bulshada maanta aynu la noolnahay waa wax lala yaabo labadii uu xiriir ka dhexeeyey waxaad mooddaa inay isku doonan yihiin labadii isku doonanna waxaad mooddaa inay isqabaan labadii isqabtaneh waxaad mooddaa inay kala furan yihiin wixii shalay dhacay ha u oggolaan in ay maanta ku mashquuliyaan ka sii soco xurmo iyo naxariis aad u muujiso qof kale ma aha calaamado daciifnimo iyo mid dadnimadaada hoos u dhigi kartaa ee waxay muujinaysaa awoodda qarsoon iyo kartidaada shakhsi ahaaneed haddii aanad riyadaada kuu gaar ka ah dhisan qof kale ayaa kuu shaqaalaysiin doonaa inaad riyadiisa la dhisto haddii aad rabto inaad caado xun iska dayso daaqadda ha ka tuurin bal qaad adigoo jaraanjarada la sii maraayo kadibna tuur noloshu way qurux badan tahay markii aad leedahay qalbi qanacsan oo ay u muuqato nimcooyinka farax badan ee alla subxaanahu watacaala ugu deeqay oo ay ka mid tahay indhaha aad hadda ku daawanayso muuqaalkan shayga keliya ee dadka oo dhan caalamkan isku raacayaan waa inaan hal meera ku noolnahay wax kaloo la isku raacaya ma lahan aargudashada ugu fiicani waa inaad guul weyn gaadho musiibo walba kugu dhacayso waxaad ka qaadanaysaa dersi si aad uga baxdo adigoo xikmad khibrad iyo cilmi kasbaday haddii aad sii waddo inaad u fikirto sidii aad badanaa u fikiri jirtay waxaad sii wadi doontaa inaad hesho waxaad badanaa heli jirtay shayga keliya suga noloshan waa isbeddelka joogtada ah maalmaha adagii waa waxa kaa dhigaa qof xooggan noloshu waa riwaayad qosol badan qofkii u fiirsada waa riwaayad murug badan qofkii dareema qofka dhinaca xun wax ka eega fursado kasta wuxuu arkaa dhibaatooyinkooga qofka dhinaca fiican wax ka eegaana dhibaato kasta wuxuu ka dhex arkaa fursado farqi la sheega uma dhexeeya geerida iyo nolosha sababtoo ah noloshuba waa hawsha geerida socdaalka kumanaanka mayl ahi waxa uu ka bilaabmaa hal tallaabo dagaalada ugu adag ee aad adduunkan gelayso waa dagaalka naftaada kaala dhexeeya aamusnaan xoog ugu shaqee guushaaduna ha samaysa dhawaaqa qeexitaanka jaxiimada adduunkan waa inaad haysato waqti firaaqa ah kadibna aad isweydiinayso in aad faraxsan tahay iyo in kale ha sugin inta dareennadaadu isbeddelayaan si aad ficil u samayso ficilka samee dareennadaaduna way isbeddeli doonaan doqonnimadu waa samaynta shay laba mar si isku mid ah adigoo hal wadda raacayo hal tallaabo laakiin natiijo kale raadinayo
guushu kama timaado waxaad marmar keliya qabato, waxay ka timaadaa waxaad si joogta ah u qabato. ilaahay ha weydiisa nolol fudud ee weydiisa awood si aad u wajahdo nolosha adag. xilliyada qaar waxaan u orodnaa hurdada ma ahan in aan raaxo raadinayno, bal in aan ka cararayno waaqica qareereen ku jirna. dadaal ilaa inta kuwa ku nacebi ay kooranayaan na shaqaalaysii. 4 shay qalbiga ayay dileen haddii ay xadkooda dhaafaan: cunidda, hurdada, hadalka, ku dhex milanka badan dadka.